Warbixin uu daawacay Machadka Arrimaha Dibadda ee Itoobiya ayaa soo jeediyay in dib u habeyn lagu sameeyo qaabka ay Itoobiya u wajahayso dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab, iyadoo lagu adkeeyay in guul waarta aan lagu gaari karin oo keliya awood ciidan, balse loo baahan yahay istiraatiijiyad isku dhafan. Warbixinta ayaa ku talisay in dowladda Itoobiya ay xoojiso hawlgallada sirdoonka iyo wadaagga xogta si loo ogaado loogana hortago shabakadaha Al-shabaab iyo dadka lagu eedeeyo inay taageeraan ama la shaqeeyaan kooxda. Sida lagu sheegay warbixinta, Al-shabaab waxay leedahay hannaan maamul iyo shabakad isku xiran, iyadoo sidoo kaleeto ay adeegsato nidaamyo kala duwan ay ku aruuriso canshuuro iyo dhaqaale kale oo taageera howlaheeda. Machadku wuxuu ku booriyay in dagaalka lagula jiro Al-shabaab uu ka gudbo wejiga militari oo keliya, lana xoojiyo dhinacyada sirdoonka, dabagalka ilaha dhaqaalaha, iyo aqoonsiga shabakadaha iyo dadka taageera dhaqdhaqaaqa kooxda. Warbixintu waxay sidoo kale xustay muhiimadda ay leedahay iskaashiga Itoobiya iyo dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan sugidda amniga deegaanada ay ciidamada Itoobiya ka howlgalaan sida gobollada Gedo, Bay, Bakool iyo Hiiraan. Warbixintan oo ah falanqayn siyaasadeed iyo mid amni ayaa lala wadaagay hay'adaha kala duwan ee dowladda Itoobiya xilli ciidamada Itoobiya ay weli ka qayb qaadanayaan howlgallada amniga ee ka socda Soomaaliya.